Magalada Jowhar waa xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waa magaalo ay gacani badan isaga dambeeyeen burburkii kadib. Hadda waxaa gacanta ku haya maamulka dawladda federaalka Soomaaliya oo kala wareegay ururka Al-Shabaab. Waxay 90 kiiloomitir dhanka koonfur ka xigtaa magaalada Caasimada ah ee Muqdisho. Sidoo kale waxay leedahay garoon diyaaradeed oo ku yaala waqooyiga magaalada, halkaasi oo hadda ay degan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM oo dusha ka ilaalinaya magaalada. waxaa bartamaha magaalada Jowhar mara webiga Shabeelle oo kala qeybiya 4 xaafadood ee Jowhar uu ka kooban yahay, kuwaas oo kala ah Horseed iyo Buulo Shiiq oo dhanka bari magaalada Jowhar xiga, iyo Kulmis iyo Hanti Wadaag oo iyana xaafadaha galbeedka uga beegan magaalada Jowhar. magaalada waxay soo noqotay xaruntii dawladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya xilligii xukuumadii Cali Maxamed Geedi iyo madaxweynihii Cabdullaahi Yuusuf, waxaana xilliga ka talinayay hogaamiyihii koonfurta ee Maxamed Dheere. magaalada Jowhar waxaa ku taala warshadii weyneed ee soo saari jirtay sokorta, warshadii barafoonka iyo warshadii suufka sameyn jirtay oo hadda ay ka muuqdaan burbur xoogan. Jowhar waxay leedahay dhul beereed aad u baaxad weyn, waxayna caan ku tahay beeraha iyo xoolaha. intaasi kadib magaalada waxaa ka socda horumaro dhinacyo badan leh sida waxbarashada, caafimaadka, kobaca ganacsiga magaalada iyo tuulooyinka hoostaga, waxaana taasi cadeyn u ah dhismayaal cusub oo dhanka ganacsiga oo magaalada ku soo kordhay. markaan soo qaadano waxbarashada magaalada, waxaa ka jira iskuulo iyo jaamacado dad badan ay u jarmaadaan. jaamacadda Joobka oo kamid ah jaamacadaha xarumaha ka furtay magaalada ayaa bixisa kulliyado kala duwan oo dadyowda kala duwan ay u soo waxbarasho doontaan. waxaa dib u dayactir lagu sameeyay wadooyinka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo halbowle u ah maridda dadka iyo gaadiidka. markaad magaalada Sheeda ka eegto, waxaa ku muuqanaya dhul baaxad leh iyo guryo bilicsan oo ku hareereysan, kuwaas oo muujinaya horumarka lagu tilaabsanayo. nabadda iyo deganaanshaha ka jira magaalada ayaa sababay in dhalinyaro badan ay u soo damaasha tagaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha, goobo si dabiici ah doog iyo caws yar uga soo baxay oo isha ay qabanayso, halkaasi oo da'yarta wiilasha iyo gabdhaha isaga qaadayaan sawirro qurux badan oo shidaya baraha bulshada ay ku xiriirto. waxa aan jeclahay nabad iyo la jire, webi jalaalaqliyo jinnadii adduun, Jowhar iyo nimcale. webi jalaalaqliyo jinnadii adduun, Jowhar iyo nimcale. sidoo kale waxaa jira dhalinyaro ku mashquulsan ciyaarta kubadda cagta oo lagu arkayo garoomo yaryar oo ku yaala hareeraha jiinka webiga iyo kuwa u soo daawasho taga. guud ahaan dadka ayaa ku mashquulsan raadinta nolol maalmeedkooda, mana jirto wax cabsi ah oo ay ka qabaan marka laga reebo qaadashada amarada maamulka ka soo baxa oo mararka qaar lid ku noqda. waxa aan jeclahay nabad iyo la jire, webi jalaalaqliyo jinnadii adduun, Jowhar iyo nimcale.